sawir qaadayaashu way kala duwan yihiin sawir qaadistu way kala duwan tahay anigu waxaan ahay sawir qaade qayb kamid ah sawirada qaada inta badan waxaan qaadaa sawirada goobaha dabiiciga dhirta dhulka bariga waxa afka qalaad lagu yiraahdo landscape photography dhawaan waxa dhacday inaan ka sameeyay ama aan ku ururiyay buug muuqaal aan ka soo qaaday gobolada iyo degmooyinka kala duwan ee dhulka Somaliland waxa weeyaan wadan qari ku ah goobo loo dalxiis tago walo badankooda dadku aanay aqoonin oo ay dadka ku nool caasimadaha iyo magaalooyinku aanay ka warqabin meelaha qaarkood oo dadka baadiyaha ku nool ay runtii og yihiin taasi waxay runtii aniga iyo dad kale oo sawir qaadayaal ah u sahashay in ay muuqaalo meelaha goobaha ay ka soo qaadeen ay baraha bulshada dadka kula wadaagaan oo dadka qaar ay u noqoto aqoon iyo barasho ah inay bartaan qaybo kamid ah dhulka Somaliland goobaha dalxiiska marka la eego Somaliland goobaha ugu caansan waxa kamid ah buurta Daalo oo ku taala Ceergaabo buurta Gacan Libaax oo ku taala deegaanka Cadaad leegteeda ama gooda weynagteeda goobaha xeebaha oo marka soo hadal qaado xeebo ay ugu horeyso marsada Berbera ilaa xeebta waqooyi Bulxaar Ceel Sheekh oo runtii ah goobaha ugu badan ee hadda dhalinyarada iyo dadka caasimadaha degan u dalxiis tagaan waxaan iyaguna ka marnay dhulka kale ee muxuu ahaa galbeedka ku yaala ay kamid yihiin Boorama iyo Seeraha Boorama oo runtii dadku ay tahay waqtiyada ciidda iyo munaasabadaha dhulka ay tagaan ee ay ku dalxiisaan waxaan oran karaa Somaliland waa wadan qani ku ah dabeecado kala duwan iyo dhul kala duwan booroley qurux badan bado xeebaley beero sida beeraha muxuu ahaa Wajaale iyo beeraha kale ee muxuu ahaa Gabiley beeraha ku yaala dhanka hawdka Oodweyne iyo beeraha ku yaala gobolka ku dabeecada qaniga ka ah Sanaag meelaha caanka ay kamid tahay Midisho goobo kale oo waxa jirta Somaliland runtii goobaha ay dunida ugu faani karto hadii muuqaaladooda la baahiyo oo lana dayactiro runtii ay kamid tahay meelaha biyo dhacale dhulka Sanaag ugu badan tahay khaasatan Godma Biyacas meesha la yiraahdo oo 90 kilomitir u jirta magaalada Ceergaabo dhulka waxa intaas dheer dhulka qadiimka ee Somaliland runtii ku faanto oo laasgeel kamid ah Hargeysa wax yar u jirta oo ilaa 5,000 sanadood lagu tilmaamo goobo kale oo dhawaan runtii ay heleen khabiro inooga yimid xagga Yurub oo Spanish ah oo dalka dhawaan joogay kuna soo bandhigay warbixino dhulkaas ay kamid yihiin dhul ay ka heleen imika siyaara meel la yiraahdo Berbera u dhow iyo Bulxaar Saylac dhulka hadda baareen ee degalada cusub ay soo saareen runtii kamid ah ceel gardooyaduna Berbera agteeda oo ay siday warbixinta ku soo gudbiyeen ay heleen dhul qadiimi ah oo jira ilaa 6,000 sanadood lagu qiyaasay markii la baaray agabkii iyo wixii laga helay oo ganacsadayaal runtii caalamka ka yimid jiray ahaayeen dhulka maraan marka runtii Somaliland waa wadan aad qani ugu ah goobo badan laakiin u baahan in bulshada la baro u baahan in xil iska saaro wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka oo runtii hadda iskeed u madax banaan waxyaalaha horyaalay kamid tahay runtii wax ka qabato shacbiga guud ahaan waxyaalaha runtii ay tahay in dhinac kasta la isla qabto wax laga qabtay kamid tahay waxyaalaha runtii mudan in sawir qaadayaal kasta ay bulshada u soo gudbiyaan iyagu maadaama ay haystaan qalabkii ay bulshada ugu fududeeyeen lahaayeen in goobaha qaar aan dadku tagi karin runtii ay kula wadaagaan Somaliland waa wadan runtii qani ah sidaan hadalka ku sheegay imikana haddana aan jeclay markasta inaan runtii ku celceliyo waxaan filayaa in dhalinyartu runtii ay tahay mustaqbalka dalkani leeyahay oo dadka waaweyn runtii waxa laga yaabaa in goobaha aanay gaari karin laakiin dhalinyaradu inay gaari karaan goobo badan oo aanay dadka waaweyn gaari karin oo runtii mustaqbalka dalkan iyo dadkan wax weyn u noqon karta waxaan rajaynayaa in mustaqbalka dhow ay Somaliland noqon doonto sida Masar loogu dalxiiska taga dhaqaalaha ugu badan uga soo galo in Somaliland saas oo kale runtii noqon doonto dunida inay ictiraaf ka duwan ictiraafka hore raadinayna runtii kaga heli doono
sawir qaadistu runtii saameyn bay ku yeelatay noloshayda oo runtii bilowgii hore siiro waxaan ku galay sibiqa laakiin markii dambe waxay noqotay shaqaan sii xiiseeyo oo runtii kamidaba nolol maalmeedkayga imika waqtigan xaadirkan joogo marka laga tago sawirada aan ka qaado landscape-ka ama meelaha banaanada aan u baxo waxaa jirta in dadku si gaar ah ila soo hadlaan ila soo xiriiraan munaasabadaha ay qabsanayaan haweenka u khaaska ah runtii in laga soo dalbado in runtii qaadista ay bartay dhulka Soomaaliland dhul kale oo kamid ah oo badan oo hore u aqoon oo markii hore markaan in gaaraba marka dambe aan runtii ay iyadu sii hagtay inaan in kale oo kale aan runtii aan haddana ku dadaalay inaan gaaro oo ta keentay runtii inaan buug ku ururiyo soo saaro waxaan rajaynayaa buuga kale oo badan inaan oo sawir inaan ka ururiyo Soomaaliland runtii Soomaaliland gudaheeda way ku adag tahay in ay markii hore runtii arkaan gabadh sawir qaada ah mana ahayn wax bulshadu runtii u baratay oo dhaqankeeda kamid ahaan jirtay markii waqtigeena anigu soo baxay ma jirin haween sawir qaadayaal ahaa waliba de banaanka u baxayo sawirada soo qaadaya caasimada tagay degmooyin u baxaya mararka qaar kood waxa dhici jirtay dadku la yaabkooda inay siraahdaan shaqadan kuma haboona haweenka waqti bay ka luminaysaa hadda waxaad moodaa taasi inay soo bedelmayso gabdho badan ay soo baxayaan iyagoo xiiseynaya sawirada munaasabadaha oo kale aad ku arkayso in gabadh sawir soo qaadanayso ay u bareerayso inay sawir qaado taas oo aniga waqtigii hore runtii ugu adkaan jirtay oo marka meel ay isugu yimaadaan dadku aad kacaysi raahda sawir qaad dadkoo dhan ay dareen ka duwan dareenka wiilka sawir qaadaha oo kale runtii ay muujinayeen oo la yaab oo kale runtii taasina waxay markii dambe keentay inaan ku sii adkaysto oo ay runtii shaqadeedii markii dambe ii sahashay anaan la qabsaday dadkii inaan muxuu ahaa iyaga laftooduna ay la qabsadeen inay arkaan in wixii markaa uu ka yara badbatay agtoodii runtii laakiin bilowgii hore caqabad bay igu yaraahayd meerarka qaar kood meelaha intaan sawir qaaday sida suuqa dhexdiisa oo kale inaan hadaa sida sawir qaado kale dadku la yaabaan qaar kood yiraahdo gabadha may gurigiisa kaga noqoto laakiin imika runtii taas waxaad moodaa bulshada lafteedu inay soo bedelayso taas fikradaas ay hadda runtii ay meesha ka baxayso alxamdulillah runtii waxaan ku dhiirin gelin lahaa dhalinyarada reer Soomaaliland guud ahaan inay dhinac ka noqdaan horumarka dalka qof waliba kaalintu kaga jiro runtii uu ka galo ka sawir qaadaya uu sawirka ku muujiyo kii aqoon kale oo daraasada ku muujiyo kii kale wax kale wadanka gaarsiinaya ama u taraya inay ku muujiyaan gacmaha la isqabsado iyo wadajir baa wadan kasta oo dunida kamid ah horumar ku gaara dhalinyarada wadan kasta oo dunida kamid ah dhalinyaradiisa u kacda waxaan aad u rajaynayaa reer Soomaaliland runtii in xil iska saaraan horumarinta dalka inaan loo deyn dawlad inaan loo deyn dad waaweyn qof waliba halka kaga aadan iyo doorkiisa uu ka qaato